Soomaaliya badeeda bariga iyo waliba hawada waa bee waxaana gadaya dawladda Imaaraadka waxaana loo xilsaaray arintaas siyaasiyiin Soomaaliyeed oo huban magac qabiil isla markaana doonaya mansab darajo dhan madaxweyne iyo ra'iisul wasaare siyaasiyiintan oo kala Umar Cabdirashiid Cali Sharmaake ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya iyo wasiirkiisa qorsheynta Cabdiraxmaan Cabdishakuur waana labadii shakhsi ee badda ka iibiyay dawladda Kenya waxaana qorshahan ku wehelinaya safiirkii hore ee Ingiriiska ee iska casilay xilka Cabdiraxmaan Caynte iyo sidoo kale Xuseen Damuumaaye la taliyihii dhanka amniga ee madaxweyne Farmaajo hadafkooda ma aha oo kaliya ah in Soomaaliya ama la mucaarado dawladda Soomaaliya maanta ka jirta laakiin ujeedkooda waa Imaaraadka inay badda ka iibiso Kenya khayraadka iyo waliba degadaha Soomaaliya oo dhanna gacanta loo geliyo Imaaraadka oo hadda awood ku leh Soomaaliya waxa uu u xilsaartay fulinta hawshan Umar Cabdirashiid iyo sidoo kale Cabdiraxmaan Cabdishakuur Muqdisho waxay ka bilaabeen abaabulka shirar joogto ah oo laga soo horjeedo dawladda cusub ee Soomaaliya waxayna doonayaan in dawladdan la rido isla markaana madaxweyne uu noqdo Umar Cabdirashiid halka ra'iisul wasaarena loo wado Cabdiraxmaan Cabdishakuur waana qorshaha boqolaalka milyan ee ku bixinayaan ay dejisay dawladda Imaaraadka Sacuudigana ay ku taageertay laakiin Turkiga iyo Qatar ayaa ka soo horjeeda hadafka Imaaraadka iyo Sacuudiga oo ku aadan in Kenya iyo Itoobiya la hoosgeeyo Soomaaliya badda Soomaaliyana laga iibiyo Kenya madaxweynihii hore ee Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud oo soo dhiciyay badda ay iibiyeen Umar Cabdirashiid iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa hore kaga digay dhibaatada ay leeyihiin Umar iyo Cabdiraxmaan laakiin madaxweyne Xasan maanta wuu ka soo horjeedaa ujeedka Imaaraadka ee ku aadan in madaxweyne laga dhigo Umar Cabdirashiid ra'iisul wasaarena laga dhigo Cabdiraxmaan Cabdishakuur labada shakhsi ee aan soo sheegay waxay ka soo horjeedeen dawladdii madaxweyne Xasan maantana waxay ka soo horjeedaan Farmaajo Muqdishona waxay ka wadaan shirar iyo waliba falal amniga lid ku ah ayagoo huban shaati qabiil ama mid siyaasi ah Cabdiraxmaan Cabdishakuur waa shakhsi ay ka go'an tahay in Umar Cabdirashiid madaxweyne uu noqdo sidoo kale madaxweynihii hore Shariif Sheekh Axmed ayaa ka soo horjeeda hadafka Imaaraadka ee leeyahay Umar Cabdirashiid waa inuu noqdaa madaxweynaha Soomaaliya laguna bixinayo boqolaalka milyan ee dollar hadaba muxuu hadda ka hor madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud dalkan ka aha bariga laba nooc oo khalad ay galeen kuwa khalad waxay galeen inay negligent afka qalad waxa lagu yiraahdo ay sameeyeen oo ay sahalsadeen dhaxalka ummadda Soomaaliyeed ay leedahay ee malaayiin sano ka hor ay lahayd malaayiin sano kala soo socotana ay lahaan doonto in ay dayalsadeen oo aanay siinin muhiimadii ay lahayd kuwa kalena waxa lagu tuhmi karaa inay dana gaar awgeed ay u bixiyeen dhulkaas kuwa aan ka hadlayay ee nadayacay shalay si غير مسؤولnimo u sahladay badeen inay baxdo ama dana gaar ka qaatay ayaa maanta jaakadaha u soo xirtay haddana xukunka dalka inay qabtaan qofka Soomaali oo aqli leh oo dadnimo ay ku jirtaa waa garan kara waxa ka dhalan kara dadka noocaas mas'uuliyadooda iyo garashadooda noocaas ay tahay markay talada dalka qabtaan waxay u horseedi karaan dalkan dadka Soomaaliyeed hafojignaadaan indhooda kor nin nacayb maaha nin jeclaysi maaha laakiin waxaan leenahay dadka mas'uuliyadda loo dhiibaayo oo dalka iyo danihiisa lagu aaminayo ha laga fiirsado gadaalshooda iyo khalfiyaadkooda iyo taariikhdoodii horena dib ha loo eego malafyadoodii hore dib ha loo eego meesha ay ka yimideen waxa ay soo mareen iyo mas'uuliyadda markii loo dhiibay meesha ay dhigeen dib ha loo eego Cabdiraxmaan Cabdishakuur waa shakhsigii saxiixay heshiiska Soomaaliya iyo Kenya ee badda waxaana uu sheegay Cabdiraxmaan in arintaas uu u xilsaartay Umar Cabdirashiid Cali Sharmaake oo xilligaasi ahaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya laakiin Cabdiraxmaan Cabdishakuur maanta wuxuu ka shaqeynayaa in Umar Cabdirashiid madaxweyne uu noqdo asigana uu noqdo ra'iisul wasaare wuxuuna shirarka uu ka wadaa magaalada caasimadda ee Muqdisho asoona meediyaha ku bixinaya qarashaad badan haddii qorshaha Imaaraadka ee ku aadan in madaxweyne uu noqdo Umar Cabdirashiid ra'iisul wasaarena uu noqdo Cabdiraxmaan Cabdishakuur ee ku guuleysato dawladda Imaaraadka
waxay Soomaalida ay arki doonaan magaalada caasimadda ee Muqdisho Imaaraadka ay ka iibisay dawladda Itoobiya sida Mareykanka uu ugu aqoonsaday Qudus caasimadda Yahuudda in Itoobiya lagu aqoonsado caasimadeeda labaad magaalada caasimadda ee Muqdisho waana muhiim muwaadin walbo Soomaaliyeed inuu ka hortago qorshaha Imaaraadka iyo Sacuudiga ee la damacsan yihiin Soomaaliya waxaan rabaa inaan waxyar ka dhawaajiyo arrin uu gudoomiyaha sheegay oo markasta lagu xiriiriyo aniga magacayga dhowr jeer horena waan ka hadlay dadka Soomaaliyeed waxaa laga yaabaa maadaama dawladnimada ay nagu cusub tahay markay nagu cusub tahay 60 sano dawladnimada ma weyna wax weyn maaha waxa la yiraahdo collective responsibility ama mas'uuliyad wadareerka way xisaabta looguma jirto dawlad markay timaado wax la yiraahdo waxa jira mas'uuliyad wadareed waxaan rabaa marka si kooban inaan u sheego sida arrintaas ay u dhacday sideedaba aad waxa uga hadlay iyadoo tafaasiil ah gudoomiyaha waana ku faraxsanahay dawladda maanta jirta inay ka faa'iiday go'aankii aan anaga 2009 gaarinay sababtoo ah laba dawladood markii muran ka dhaxeeyo meeshan beelo ma ahays dagaalahay oo ugaas inta loogu hor dhaxaadinayo ma laba dawladood markuu muran ka dhaxeeyo saddex wada kaliya u furan oo ka dhaxeeyo ku xaliyaan haddii qof mid afraad ii keeno waa wax cusub adduunka aan ka jiro koow labada dawlo inay muranka ayaga dhexdooda isaga filnaadaan oo iska xaliyaan Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa dhowr mar wuxuu hore iskaga difaacay eedeymaha ku aadan in badda Soomaaliya uu ka iibiyay Kenya laakiin Cabdiraxmaan wuu qirsan yahay asoo wasiirka qorsheynta ah inuu Kenya heshiis la galay oo ku aadan xagga xuduudda badda Soomaaliya iyo Kenya oo qayb ka mid ah xukuumaddii Umar Cabdirashiid ee madaxda uu ka ahaa Cabdiraxmaan uu ka ahaa wasiirka qorsheynta ee la galeen dawladda Kenya Umar Cabdirashiid oo xilligii kaambeenka durayay madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud wuxuu sheegay in heshiiska uu jiro laakiin sida loo dhigayo aysan ahayn Soomaalida ayaa ka wada dharagsan in Umar Cabdirashiid iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur hore ay u bixiyeen qayb ka mid ah badda Soomaaliya oo ay soo celisay dawladdii madaxweynaha uu ka ahaa Xasan Sheekh Maxamuud laakiin maanta labada nin waxay u taagan yihiin inay kala naqdaan madaxweyne iyo ra'iisul wasaare lana tuuro dawladda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waana ayaan daro qof walbo Soomaali ahna wuu og yahay Farmaajo iyo Umar Cabdirashiid in Umar uu yahay caada qaate aan u daneenin dadka iyo dalka Soomaaliyeed Soomaalidana waxay walwal ka qabtaa qorshaha Imaaraadka iyo Sacuudiga hadduu hirgalo oo madaxweyne uu noqdo Cabdiraxmaan waa madaxweyne uu noqdo Umar Cabdirashiid ra'iisul wasaarena laga dhigo Cabdiraxmaan Cabdishakuur meesha ay ku dambeyn karto Soomaaliya haddaba Umar Cabdirashiid iyo Cabdiraxmaan Cabdishakuur labadaba xilligii kaambeenka waxay u codeeyeen madaxweynaha maanta jooga Farmaajo laakiin ma aha shakhsiyaad doonaya dawladnimo ujeedkooda waa in la iibiyaa dalka Soomaaliya aan daawano Umar oo ka hadlay heshiiskii Kenya xukuumaddiisa ay la gashay qaybta labaad ee barnaamijkan waan iskugu imaan doonaa hadduu Allah awood leh u saamaxo runtii waxaan rabaa maanta inaan salaad bogaadin u diro shacabka Soomaaliyeed ka soo jooga waxaan rabay sidaan maalintii aan halka imid aan soo degtay aan u sheegayba su'aashii yarkay warsaday arrimihii madaxa ku saabsanaa inaan xoogaa ay khabar bixiyo maadaama hadda maxkamadda caalamiga socoto waxaan rabaa horta fursadda inaan fadhiisto inaan bogaadiyo runtii aan mahadna u celiyo khubarada iyo qareennada matalaya dowladda Soomaaliyeed sida funaanta iyo wanaagga leh ee u mataleen kayskeenna iyo sida ay u tuseen Soomaali iyo adduunka oo dhan wixii isfahankii la gaaray 2009 la siixay inaysan shaqo ku lahayn waxna aysan ka gelin wax xuduud la dhaho ay ahayd kaliya sababtii keentay iyo sababtii la isugu yimid ay ahayd in maadaama annaga aan doonayn inaan ku darsano badeenna meesha la dhaho EEZ oo hadda 200 nautical mile ah inaan ku darsano 100 ilaa 150 hadba meesha ay gaarto in labada dawladood aysan marna isku hor imaan xaraynta meeshaas waxay ku cadeyd ciwaanka